حطمي اليأس ولا تستسلمي، عبث الحزن بأحلام فتاة. ارفعي الرأس شموخا وارسمي بسمة تطوى على بؤس الشفاه. حطمي اليأس ولا تستسلمي، عبث الحزن بأحلام فتاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي ذقالي أهوى إن سلامي مقعي ورحمة هلك أد مقدا ونسان وملاك جانل وحان سو دوينايا ولاalaha inagu cusub waa ku mahadsantihiin sida inoo doorateen. waxaan idin leeyahay soo dhawaada. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa walaalihii hore inoola joogay oo noo soo qorayo faalooyinka quruxda badan. runtii markaa akhrinayo faalooyinka ay soo qorteen aada u farxaa, waxaan dareemaa dhiirigelin. taasna waxay igu dhalisaa inaan mar walba idiin soo gudbiyo waxyaabo kale oo aad wax badan ka faa'iidi kartaan. intaas kadib maanta waxaan rabaa inaan idiin horkeliyo codsi intiina badan ay iga soo codsateen kadib markii aan soo geliyay 10 kitaab janalka oo aan akhriyay. faalooyinka markaa akhriyay waxaa ku arkayay kitaabka imraa min baratin khaas in yani khulaaso ka soo sameeyo. kitaabkaas wuxuu ka sheekeynayaa caadooyinka ay leeyihiin haweenka guuleystay. inta aanan guda gelin khulaasada kitaabka, marka hore waxaan wax ka dhahaynaa wax yar oo ku saabsan qoraaga buuga. qoraaga buuga magaciisa waxaa la dhahaa Dr. Kareem Ashadli. waa nin Misri ah, wuxuu bartay iclaamka ama miidiyaha. wuxuu mudiir ka yahay daarul ajyaal linashri watawsiic, daar laho oo Masar ku taalo. sidoo kale waa muxaadir dhowr jaamacadood oo Masar ku yaala ayuu muxaadir ka yahay. wuxuu wax ku qoraa luqada carabiga si fasiix ah oo weliba qofka markuu akhrinayo ku raaxeysanayo. wuxuu leeyahay kitaabo fara badan, waxaana lagu tarjumay kitaabadiisa dhowr luqadood oo kala duwan. waxaa ka mid ah kitaabadiisa الآن أنت أب، كم حياة ستعيش، جرعات من الحب، إلى حبيبين، عيش عظيما، الشخصية الساحرة. waxaa u maleynayaa ilaa 15 kitaab inay gaarayaan. intaas kadib waxaan u guda gelaynaa khulaasada kitaabka. guud ahaan kitaabka wuxuu ka sheekeynayaa gabadha guuleysatay sifaadka ay leedahay sida hore aan idinkugu soo sheegay. sifada ugu horeysa waxaa waaye almubaadara waxa loo yaqaano, yani shayga aad rabtid inaad sameysid inaad markiiba sameysid. sidoo kale dib u dhigashada waxaa la dhahayo in yani iska ilaalisid. mubaadara wuxuu ku macneeyay yani noloshaada adiga inaad gacanta ku haysid طموحاتكاada iyo ahdaaftaada iyo waxyaabaha aad rabtid inaad gaartid. wax markay kaa qaldamaan inaad mas-uuliyadda adiga aad qaadatid. wixii qalad ah oo dhanka dadka kaaga imaadana inaad si wanaagsan ula tacaamuli kartid oo markiiba qaraar sax ee aad ka qaadan kartid. wuxuu tusaale usoo qaadanayaa sheekadan uga qoray gabadha loo yaqaano Rosa. waa gabar Mareykan madow ah. sidaa wada ogtihiin xiliyadii hore Mareykanka waxaa ka jiri jiray cunsuriyad aad u xun. cunsuriyadaas oo la dhahay dadka madowga ah iyo eeyada iyo yaanyuuraha waa isku xuquuq, yani hal xaq ay leeyihiin. dadka cadaanka ah ayaa ka xaq badnaa, yani laga tixgelinayay. iyaga wax oo qiimo ah ma lahayn, ma fahamtay? marka wuxuu dhahayaa ashhar la fi taariikh uu uga sheekeynayaa qisadan. waxaa jirtay marka maxalaadka iyo meelaha maqaaxiyaha, meelaha dadka iskugu imaadaan, waxaa lagu qori jiray inaysan soo geli karin ninka madow iyo yaanyuuraha inaysan geli karin. sidoo kale basaska markii la raacayo waxaa jirtay qof madow hadduu fadhiyo gaarigu buuxo uu qof cadaan ee soo galo, qofka madow wuxuu ku qasbanaan jiray inuu ugu istaago, yani qofka cad inuu uga istaago. marka waxaa dhacday gabadhan Rosa ayadoo laamiga taagan ee bas raacday. boos ay ka heshay way fadhiisatay. waxyar markii la dhaqaaqay nin cadaan ah oo soo koray baskii. waxaa dhacday marka in yani dadkoo dhan indhee kusoo wada taageen, macnaha inay kursiga ka kacdo ayadoo la amrinba ama kac la dhihinba inay kacdo aa laga filaya, iyadana maysa sameyn. kadib markii la dhahay maa ka kacdina way diiday. maya idhahday ma kacay lianno waa khalad. waxay ogaatay inay khalad tahay.
adiga xabsiga ku gashay akhiiran way kasoo baxday. In xuquuqda dadka madowga ah loo doodana halkaasay ka bilaabatay. gabadhan ilaa yowmina haada waxaa laga xusaa dalka Mareykanka. ma fahamteen? يعني هذه هي المبادرة. صفة labaad waxaa waaye waxa loo yaqaano kalsoonida nafta. kaatibka wuxuu leeyahay naftaada inaad ku kalsoonaatid waa sirta guusha nolosha. يعني kalsoonida nafta ma ahan inaad dadka iska weynaysiisid, inaad kibirtid, in yani quruur uu ku kalo ma ahan. laakiin waxaa waaye inaad marka hore ilaahay subxaana watacaala aad ku kalsoonaatid, then naftaada aad ku kalsoonaatid iyo mawaahibda daaqaadka ilaahay subxaana watacaala uu ku siiyey. dad badan oo waxaa jiro awood leh, karti leh, fikrad leh, fikradahooda soo bandhigi lahaa, laakiin iskuma kalsoono. waxay ka baqayaan hadhow waxaa markaa dadka la dhex imaatid ama lagugu caayaa, ama dadka saan ku dhahan, ama wuu ka baqayaa. waxaa ka dhalanaysa marka fikradda inuu la dhintaba qofka aanan waxba laga faa'iidin. baynamaa dadka nafsadooda ku kalsoon aanan ka baqaynin hadallada dadka, waxay soo bandhigayaan fikradahooda, waxyaabaha ay rabaan inay bulshada u gudbiyaan. dad badan oo bulshada ka mid ah ayaana ku faa'iida. sifada saddexaad ee leedahay gabadha guuleysatay waxaa waaye waxay qorataa ahdaafteeda. kaatibka nolosha wuxuu ku sifeynayaa doontaasoo ku dhex socoto badweyn. ninka doonta kaxeynayo haddii uusan helin wax jiheynayo ama khariido uu raacayo, khariidadaasoo gaarsiinayso meesha uu rabo inuu gaaro, waxay noqonaya baddaha iska dhex warwareegsado, ha wareero danne dadkii iyo doonta wixii saaran dhan inay meesha yani ay halis ku galaan, ay ku halaagsamaan. noloshana sidaas ayay la mid tahay. haddii aadan hadaf lahayn, waxba kuu qornayn, qorshe aadan lahayn, waxaad ku dhex sugan tahay wareer. marka noloshaada waa sida doon oo kale ku dhex socoto badweyn. sifada afaraad ee leedahay gabadha guuleysatay waxaa waaye addakaa alijtimaaci waxa loo yaqaano. addakaa alijtimaaci haddii aan fasirno waxaa waaye tacaamulka dadka ama sida aad bulshada ula xiriiraysid. in badan waxaa wax laga qoraa dadka see ula tacaamule, dadka see u kasbaneen qalbiyadooda, laakiin sunnadeena iyo kitaabkeena haddii aan ku laabano wax badan ayaa ka heli karnaa oo ah qaabka dadka loola tacaamulo. in dadka aad jeceshahay hadiyada aad u geysid, in dadka aad jeceshahay iyo dadka aadan jecleynbo aad si wanaagsan ula hadashid hadal fiican, in afkaaga iyo adinkaagaba laga ammaan helo. intaas iyo ka badanba waxaa laga helayaa diinteena macaanka badan. sifada shanaad ee leedahay gabadha guuleysatay waxaa waaye idaaratul awlawiyaat. idaaratul awlawiyaat yani shayaasha waxay ugu kala jiraan qaanado, iskagama dhex yaacsano, iskagama dhex tarsano. shay kasta shayga uu ka horeeyo uu ka mudan yahay way taqaanaa. mar walba waxay tarkiiska saaraysaa hadafkeeda ama shayga muhiimka u ah. waxay leedahay qorsho, waxay u kala leeyihiin waqti. mar walbo lama helo, mutawafir ma ahan. maanta adigoo hool leh, waxyaaba ay ku qoran yihiin, rabtid inaad gurigaada wax ka qabsatid, ilmahaaga reerkaaga aad waqti siisid, saaxiibtaa inay intay kusoo wacday ku dhahdo maanta aroosa aadeyna, meel hebla aadeyna, waa soo baashaaleyna, soo bax ay ku dhahdo aa iska raacdid, sax ma ahan. waa inaad dhihi kartid iga raali noqo, maanta qorsheyga waxaa waaye sidaas iyo sidaas, qorshaa iguma jirto inaan ku raaco ama banaanka aan kula aado, iga raali noqo. walaalahayga qaaliga ah, fideogani intaas ayuu ku egyahay. waa mahadsantihiin sida u dhegeysteen ilaa dhammaadkana aa usoo gaarteen. fideogan haddii wax un aa ka faa'iiday, qof kale oo walaalka ah uga faa'iiday oo u sheer kare, like saar, wuxuu naga caawinayaa dad kale inuu tuso uga faa'iidaystaan sida adiga uga faa'iidaysatay. haddii aan ugu cusubtahay markii ugu horeysay ee tahay janalkeena arkaysid, soo dhawaaw, subscribe noo saar haddii aad ka heshay janalkeena. haddii aadan ka helin hadda dhib ma lahan. aada u mahadsantihiin. mar walbo kama daalayo inaan idinkaaga mahad celiyo. qalbi fiicnaantiina waa inta wanaagsan iyo faalooyinka quruxda badan ay soo qortaan. waa mahadsantihiin.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حطمي اليأس ولا تستسلمي، عبث الحزن بأحلام فتاه، ارفع الرأس شموخا وارسمي بسمة تطوى على بؤس الشفاه. حطمي اليأس ولا تستسلمي